وردت كل حكومي اللي هاي نك هبل ودني أي ليه هنا الشجع ودقو محمد ودني نك اللي دقو oo ay ugu qoran tahay fiirsada meelaha aska soo hadlo wadin ay ugu qoran tahay yiriisow taliyaha ciidanka uu ahaa xataa koonfur galbeeda soo magacaawday warqadii ay ku soo magacaawdeen haya ciise caalan taliyo ahaa ragii taliyayaasha ahaa shabaabka uu sadhigay difaacaya inta maxkamad beenaad loo abaabuliya foosto loo soo dildilay iyadoo la rabay in la argoosto ayaa muxuu ahaa xakun been lagu riday asaa waliba nimankii iiga ahaa intaan xilka ka wada qaadnaan dhahnay iska baxa duurkiina iska aado asaa niman hiiraan jira maalin walba yaqbiru weyn loogu duula haddii ciise caalaan iyo yiriisow iyo muxuu ahaa duqow ay ku dhintaana ay meesha liiraha yaqbiru weyn lagu dilo kad ibaan ahay mardaba iga wareysanna idaacad maba joogaan dhulkaas laakiin dadka dhiigooda sida lagu banaysana oo muxuu ahaa ay rabaan inay maalin walba ay raahdaan waxaan ku duulnay meeshaas dad xukuumanaan soo qabanayna hadda waa noo salaam dad xukuuman saddex aan dilnay dheen okay saddex idin harti Soomaa raasada meeshaad ka raasan kartiin ka raasada laakiin yaa qabiru weyni amaan ha idin ka hesho dadkaas rayidka iyo suuqyadooda iyo ganacsigooda dhibaatada ka daaya haddaad ka dayn waysiin dhibkii idinku dhacay talaadada idinkana waa xasuusateen gaal jibkeeda waa qarsataa dhibkii idinku dhacay mid ka xun ayaa idinku dhacaya ilaa hiiraan ilaa jowhar ayaa gurmudka isdaba yeela war walaalo wiilkaaga askaaga dhiman meesha haddaad aarsanaysi waad aarsatay geeleeyaad ku aarsatay safarey islaameedo oo aan dhulkaas u dhalanaad ku aarsatay waxaad yeelaysaa yiriisowna ma dilin duqow wadanina ma dilin ciise caalaanna ma dilin xuseenna ma dilin cid aad dishay lama yaqa eelay ma dilin hebel eelay ninkii lahaa oo la baxay ma dilin oo ganacsadaha sida cadaalad darrada aad ku xukunteen ma la dilin ganacsigiisii wixiisa intuu rartiyo meel kala geystay war ilaahay ma taqaani dhulka dadka aad ka raadinaysiin ma jooga xal kale ma dooni kartiin saraakiil beeleed muxuu ahaa horkacay gaashaan inay maalin walba dadkayna ay ku duulaan sax ma baakay abarwa bentood waa lixdii nin buu nool yahay ana u sheegay lixdii nin ay maxkamadda beenta ku xakuntay lixdooda waa nool yaqbir weynana ma joogaan meel kale ka raasada war waxa dawlad warkeed ma ahan nima saraakiil beeleedya ah ayaa warka soo tagay idaacad ay iiga leeyihiin ayna ka sii daayeen kulmiye oo qabiil dhan oo gaal jecel yiraahdo mooryaanku tilmaamaysa ayaa laga sii daayay oo warkaas baafis iyo ilmo YouTube le oo reeraysan war waxaan wax reeraysan waaye dawladda federaalka waxay ku leedahay meeshaas waxa ka jira waxay dawladda federaalka ku leedahay waxa ka jira rasaasta odawaay laga qaadaa rasaasta ay ku dagaalamaan ee dadka in lagu dilo wasaaradda gaashaandhigga iskale waxa kale wasaaradda gaashaandhigga malaha baabuurka tiknikada iyada malaha reeraa iskale wiilka oo taliyaha meesha ka reeraa iskale muxuu ahay dhammaan baabuurta iyo wiilasha u dagaalamayo tuutaha beenta loo geli reeraa iskale dawladda federaalka waxa ay ku leedahay waxa ka jira rasaasta ay dhahaan ciidankii dagaalamaya duqoobaan raadinaya rasaasisi markay dagaalamaan taasoo iyada ruuxeeda ganacsi gasho ganacsigaas ruuxiisu duufaantii xasan barsan xataa waa gaadhiyo rasaasta raqiis ay noo noqoto waa gadana iigan ka gadana marka nimankan ha iska daayaan ruwaayadan ciidankii rasaastii ciidanka loogu talagalina lagu baabi'inayo shabaabkii wiilashii shabaabka la dagaalamayna lagu xagal daacinayo intay dagaalka hadda iyaga wadaan meeqa shabaab ay naga dishay mantaqaan sun xarigay dishay hab weydiyaan ciidan oo special liiraahda oo aan la howlgalnaa joogay hal weydiyo shabaab dhinacaas naga dilo hooya nima qabiilaysan dhinacay naga dilo hooya rasaasii dawladda laga soo qaaday wiilashii shabaabka celinaya lagu dilo hooya madaxweyne xasan sheekh in la xureeyo ma raba dalkan maxuu shalay ii lahaa ciidan macaawusleey oo ka dagaalama dhulka gaal jecel hiiraan aan kula kulmay wuxuu yiri ciidan macaawusleey diyaari jowhar aan ku diyaariyay hiiraan aan ku diyaariyay ciidanka waa waxa shabaabka la dagaalamayo haddayna shabaab la dagaalamaynin ma yaqbir weyn la joogi lahay
قاشان محو حرين واي نكل ماشي اللي هذا دونك محز حرين واي 6 كيلومتر مال ودو اي حريس وين وافقو يكون طالع اي شباب وجرر محز حرين واي markaan aan calanka madow meesha taalada laga dhisay aan ka siibay ee wiilka shalal dhintay gacanta kaga go'ay iyaga dhaawacmay ee Mareykanka ay soo gurmanayeen war walaalow maxaad iigu imaan ways hadaad ciidan tahay war raali ha ahaadaan ciidan aniga meeshaas kuma aan arag hadii ciidan aan ku arko yaqbir weyn hadagaan xere ka samaystaan tababar kow iyo ciidan ha uu sameeyana ciidan dawladeed oo maxoohay ku jiro database ha laga dhigo waa huba ciidanka shalay daraadka ka dagaalamaya yaqbir weyn hal qof oo database ku jiro malaha ko markiis intaba mid laga keenaa guraceel oo lagu soo diraa war walaalow ilaahay ma taqaan dagaalkaas xalku ma aha wiilka dhintay moogi wiilkaagan faa'iidoobay gaal jecelna meeshaas wuxuu u yahay muqaddas ilaahay ma taqaan isbaaraha haday wax tarayso gudoomiyaha degmada yaqbir weyne weydii xarashiin ay dhigteen iyaga xarashiin hadda dhigtay xarashiin ay dhigteen hadda oo ay ka qaadan gaadiidleyda la weydii gudiga gaadiidleyda la weydii gudiga gaadiidleyda la weydiyo dadka la dhahayo idinka fiir saxaafiinatiin gudiga gaadiidleyda la weydiyo isbaaro kale oo ku soo kordhay inta u dhaxaysay yaqbir weyne iyo wala weyn isbaaro kale oo ku soo kordhay ma jirtaa hadii ha idin dhaana ana dulmilow oo beenlow gaashaan sidoo uu soo orday xarashiin oo dhigtay muxuu ahaa baalki kuwan gaar jeclaan meesha ka saaraho yiri wuu ka saar way gaadiidleyda diidiba oo tiri tan gaar jeclaa sax ah tan oo muxuu ahaa inta taalana sax ma anoo inta joogo ma baxo ay liisoo sheego gaadiidleyda iisoo sheego sababtoo ninkan nin oo dhulkaas xaq u leh in isbaaro dhigto ma aha shabaab ma ka celiyo oo nin shabaab la dagaalama ma shabaab hadii iska celinayo hay soo raac anaga shabaab la dagaalamo hoyn danaba la dagaalamo hoyso oo la dagaalamayso wardana ma i weerarto shantii baabuur baxaysaba 10 wiil oo macawisley ah raacdo oo hogaamis Mareykan disbaxay dhul dad yaqaanaha raaco oo waardiyeys oo la hawl gasho kuwaas ma isoo qabtaan oo ma idilaano ciidankan macawisleyda la dagaalamaya ee qabiilaysan ee balaayadooda ay ka soo bilaabatay 4 wiil oo ceelka lagu dilay ay ka soo bilaabato ha ii dawladeynine nimiyo aan run u soo sheegno ilka iyo maxalliir iyo afba waa la cadeeyay aan muxuu ahay dadkaas isku dhamaanay waa huba 13 ka badan waa ugu dhimatay markay 6 nin oo qaar geel shubanay iyo qaar safarey ah oo deegaanka u dhalan ay ku dilaayeen iga ciidana ka dhigtay waa la dagaalamay dadka deegaanka waa wax la dagaalamay yiriisho kuma jiro duqow kuma jiro ciise caalan kuma jiro muxuu ahaa eelay kuma jiro dadkii la xukumay ee magacyadooda faylkooda hala soo qaaday hal qof oo ka dhintay ama ka dhaawacmay ma laha aniga war anaa xukuma nimanka dhalinyarada anaa xukuma anaa meesha geey niyo been ma ku sheegay aniga fiiri ina cabsanahay ay mudo anaa xukumo anaa meesha geey anaa calankii madabay ka siibi meesha taalada lagu dhis waxa sheegtay xasan sheekh waa ogyahay cid walban waa ogtay waxa sheegtay in meesha gaal jecel isbaarada u taalo ay xalaal u tahay anigu isbaar xalaalay maayo aniga isbaar xalaalay maayo laakiin waxaan ku sheegaa ciidanka anaa waday oo meesha geey anaa ka wada hiiraan anaa ka wada johor anaa meesha geey ayagoo waliba technique wato oo wax walba wato hadda technique waan ka xareeyay waxay baqaateen markii aan arkay inay dawladda daacad ba ahayn oo ay nagu dagaalka garab nagu siinayn baasuuka lay wataan bas maadaama dawladda garab ku shalay baasuuka ay naga soo furteen waa mid meel u taalo hub waaweynaan ugu qaadan doona taas been ku sheegay ciidanka anaa dhaqaale qabiilkooda dhaqaale ana qabiilkooda miyo kan gunadiis qaato wala laga gooyaa waxa laga yaabaa hataa qaar wariyaal inay gunada ay wax ka bixiyaan annaga dad isku tashtaanay dhulkaayna annaga isku tashanay been ma sheegay anigu maxaa baan ugu wato ciidanka anaa xukuma ninkii dacwo ka qaba anaa igala soo xiriir anaa meesha geey
ميليشيات كولدها هي نسبة war anaa meeshii geeyey ciidankan ku iri xasan shiikhaa gey ii yiri ممكن ميليشيات كدولة waa ciidankii macaawisleyda ahaay ilaa i hadday la howlgalaan danab la howlgalaan danab ma soo qabato ciidankan muxuu yahay danab ma aha SNA waayaa la yiri SNA nin oo sargaal beeleed ahaa xukumo oo 7 sano jooga afgooye oo aan beertii cali mahdi al-shabaab u joogo warniyo fiiri rag dhiigooda laguma gorgortamo ninkii balad amiin soo xureeyey oo kabheerka xureeyey oo yaqbir weyn xureeyey oo leega xureeyey oo maanta caada johor iyo yaqbir weyn inta u dhaxaysa daahir oo dabagaab qaba kula weyn karo tigi kar dhaawacii soo dhaawacmo waxa la soo marsiyaa meesha halkaan kana dawladda igu masaacido waagii hore waa igu saacidi jirtay laakiin hadda igu masaacidaan isbitaalada private kan ka daaweysta war ciidankaas noo daay oo dadkaas iyo dhulkooda noo daay wallaahi billaahi tallaahi habeenkii ay laba wiil naga dhimato 20 qori noo soo hoyato qori wadato 20 aakaan gadanaa daashiikaan gadanaa dagaalka dad waa lagu caraantamiyay hana caraantaminaha wax kala inaan wax kala sameeyno hanagu qasbina wax ka weyn waxa maanta aad raadinaysay inaan sameeyno hanagu qasbina waxaan la howlgalnaa Ameerikaanka waa la weydiin karaa waxaan la howlgalnaa ciidamada danab waa la weydiin karaa kuwaas ciidankii dawladda ma aha miya maxay yihiin ciidankan maalin walba afgooy lagu aruurinayo 10 markay ka dhimato la sii kordhinay ciidan beelado ila dagaalama waaye rasaasta ka daaya aniga caanaha geelaygan ku gataa rasaas ka daaya lama qabiilo isdirirayso oo xaq u leedahay inaad soo dhax gashin ka dhiga waa dawladda markaan la hadlayo haddii aad yeelaynin ma aho waxaan aaminsanahay meel walba oo muxuu ahay oo ay joogaan reer gaal jecel inay isdifaacaan wallahi anigu sideedaba dagaalka ma jecli waa waxaan ka afeefanaya hadda waxaan leeyahay war wixii dhacay way dhaceen qabiilka muxuu ahay tuhunka aan ka qabno ee walaalahayna noo soo raacay isbahaysiga noo samaystay aan wada hadalno anaa walaalka aniga dhulkaygaan joogaa ma soo duulin guraceel ma ku duulin dhuusamareeb ma ku duulin walaalaan nahay wiilashan ilma adeerta ee garaadaha beenta garbaha looga buuxiyay ee ciidanka wata idinka dhashaan dibi doolaad badala iska leh wiilkii Siinaay dadka ku laayay ee 6 qof ee dilay gaal jecel ee waliba dawladda u ahaa staafka diidooda bixiyana la yiri dawladda xasan sheekh ayre bixiya waana bixiyo hoyna wuxuu haleeyay ninka la yiraahdo muxuu ahaa gaashaan iyo halac waxay haleeyaan diidooda iyo dadnimadooda iyo mas'uuliyadeeda idinka iskale garaada been hol soo xirtay aniga ku qanci ma walaalahayna tihiin naga soo cishta wiilashaas dawladda federaalkana waxaan leeyahay warsaas aad siinayso shabaab u baahan in lagu dagaalamo ana xaq u leh in liisiyo intay dagaalkaas ugu socdo dad ay shabaab iga dileen oo difaac ku jiri magaalada liiga qabsaday oo leega liiraad ilaahay ma taqaanin naga joojiyo dagaalkan aan shabaab u soo jeesano aan iska celin hadda diideen inta Soomaa cirkaas biika keena gaal jecel sidoo si difaac waa leeqa